ciyaar aad u xiiso badan oo soo jiidatay dadweynihii daawanaya ayaa maanta garoonka Sheekh Xasan Muumin ee magaalada Boorama ku dhex martay dawladda hoose ee magaalada Boorama iyo dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. ciyaartaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile, mas'uuliyiin kale iyo dadweyne aad u fara badan. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile, waxaana uu sheegay in ciyaartani looga dan leeyahay isbarashada iyo isdhexgalka dhalinyarta gobolada, gaar ahaan dhalinyarta labada magaalo ee Hargeysa iyo Boorama. maanta halka waxaan la joogaa naadiga dawladda hoose Hargeysa waxay la ciyaarayaan naadiga dawladda hoose Boorama. runtii waan soo dhaweynaynaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye sidii la isku dhexgeli lahaa, dhalinyarta la isku dhexgeli lahaa iyo sidii isbarasho uga dhici lahayd. sida aynu la soconno waxaa bilaabmi doona ciyaarihii gobolada, markaa yacnaa inay dadku dulqaad iyo dhalinyaradu inay dulqaad iyo samir inay u yeeshaan ciyaarta qaad iyo samir ugu yeelan lahaayeen way ujeedada laga leeyahay. ay marka ay gobol ka tagaan ay gobolka la tagaan siday ciyaar wanaag uga soo muujin lahaayeen. sidii waxaa kaloo halkaasi ka hadlay xulka dawladda hoose ee magaalada Hargeysa, waxaanu ka warbixiyay safarkiisan uu ku yimiday magaalada Boorama. waxaanu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka magaalada Boorama, aadna ula dhacay sida loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama. waxa kale oo uu sheegay inay imaatinkan ay yimaadeen ay ku timiday isdhexgal iyo wada hadal qurux badan oo ka dhaxeeya labada maayir ee magaalada Boorama iyo magaalada Hargeysa. waa sida uu hadalka u dhigay dawladda hoose ee magaalada Boorama oo labadii caasimad u ciyaarayaan. insha Allah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay marka kulanka hore saaxiibnimo iyo waxa weeye maayirada labada dhinac waxa weeye dhiirigelinta ka qayb qaato labaduba waxa weeye ciyaartan si kulan saaxiibnimo ay leedahay qabsoonto suurta galiyay. waxaan marka aad iyo aad u hambalyeynaa oo u mahadnaqayaa maayirka caasimada maayirka waxa weeye magaalada Boorama oo si wanaagsan noo soo dhaweeyay. runtii hawshana suurta galiyay inay suurta gasho. waxaan anaguna rajaynayaa insha Allah inay markay noo yimaadaan waxa weeye sidoo kale waxa weeye loo qaabilo. ugu dambeyntii ayaa waxaa ciyaartani ku dhamaatay 2 gool iyo eber oo ay guushi ku raacday dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Xasan, shabakada wararka xiddigta magaalada Boorama.